الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، waxaan darsigeena hore kusoo sheegnay farqiga u dhexeeya almiisaan walmawsuun, oo waxaan soo niri almawsuun waa kelimaadka la miisaamayo, almiisaanna waa cabir ee culimmada sarfiga ku heshiiyeen in kelimaadkaa lagu miisaamo, oo ah faa iyo cayn iyo laam. waxaan kaloo soo sheegnay waxay ula jeedaan faa'u lkalima, caynu lkalima, laamu lkalima. darsigeena maanta wuxuu ku saabsan yahay almujarad. almujarad waxaa la yidhaahdaa kelimo kasta ama isim ha noqoto ama ficil ha noqoto oo xuruufteeda oo dhan asal ay yihiin. marka laba shay baan uga hadli doonaa: mal xuruuf alasliya, xuruuf asal maxaa la yidhaahdaa, iyo kayfiyatu wasni lmujarad, qaabka loo miisaamayo isimka ama ficilka mujaradka ah. mowduuca ugu dambeeya waa almasiid. masiidkuna wuxuu ka soo horjeedaa mujaradka, oo kelimaadka mujarad iyo masiid bay u qaybsamayaan. marka masiidku waa kelimad xuruuf asliyana wadata, xuruuf zaa'idana wadata. marka laba mowduuc baan insha allahu tacaala asagana kusoo koobi doonaa: mal xuruufu zaa'ida, xuruufta zaa'idada waa maxay, meeqa weeyaan, shuruuddeedana qeybaha ka mid aan sheegi doonaa, iyo kayfiyatu wasni almasiid, qaabka markaa kelimada masiidka ah loo miisaamo. intaasana marka kusoo gabagabeynaynaa madkhalkeena ilaa cilmi sarf biidni illahi subxaanahu wa tacaala. haddaan ku bilowna alxuruuf alasliya, alxuruuf waa jamcu xarfin. xarfna lagama wado muqaabilka isimka iyo ficilka oo cilmiga naxwaha lagu baxfiyo, oo culamaau naxwi waxay yidhahdaan kelimadu waa ismun wa ficlun wa xarf. meeshani xarf waxaa loola jeedaa xarfu mabna, bimacnaa xuruufta ay kelimada ka kooban tahay. calى sabiili اlmithaal, dahaba waxay ka kooban tahay 3 xuruuf: addaalu wاlhaau wاlbaa. alasliya waa nisbat ila alasl. asalna baabkani waa muqaabilu ziyaada, waxa ziyaadada kasoo horjeeda loo yaqaanaa. oo waxayna ku tacriifiyaan waa xaraf kasta oo kelimada laazimaya fi tasriifiha. mathala maadin ilaa mudaaric ilaa amar, xuruufta marnaba aanan dhacaynin oo kelimaadka laazimaya waxaa loo yaqaanaa xuruufun asliya. amaa xuruufta marna dhacaya marnana markaa lagu arkaya kelimadii, kuwaasi waxaa loo yaqaanaa xuruufun zaa'ida. amhiladay wax ku kala caddaanayaan. amhiladan u fiirso, labada khadi ku kala qoran yihiin u fiirso: kataba, yaktubu, uktub, kaatibun, maktuubun, kitaabatun, maktabun, maktabatun, katiibatun, aktaba, istaktaba, kaataba, kataa'ibu. sida kuu muuqata, xuruufta khadka madow ku qoran waa xuruufun asliya: alkaafu waاttaa'u wاlbaa. sababtoo ah marnaba kelimada ma faaruqayaan, bal kelimaday laazimayaan. si kastoo loo gediyo, si kastoo tasriif lagu sameeyo, kelimada ayay laazimayaan. oo mathalan, kataba, yaktubu, uktub, kaafkii iyo ta'dii iyo ba'dii mar kasta waa joogaan, bikhilaafi ilyaa fi yaktubu. sidoo kale waxaa la mida miimka, alifta, wowda, ta'da. xuruuftaasi ayaga waxaa loo yaqaanaa ee khadka axmarka ku qoran xuruufun zaa'ida. xuruufun zaa'ida. marka tacriifkeeda marka waa maxay? alkaafu waاttaa'u wاlbaa waa xuruufun asliya. limaada? liannaha laa tasqutu fi tasriifi اlkalima. sababtoo ah xuruuftani ma dhacaan kelimada tasriifkeeda, allahuma inay cilo sarfi ay jirto, oon insha allahu tacaala fiima yustaqbal aan ogaan doono biidni illahi subxaanahu wa tacaala.
halkaana waxaa noogu dhammaaday darsigeeni saddexaad. هذا وبالله توفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.